بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daawadayaasha iyo dhegeystayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan ee daafaha dunida inagala socda halkani waa Somali Voice Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway waxaana weli bartanka kaga jirnaa bishii barakada iyo khayrka badneed ee Ramadaan waxaana inoo socda barnaamijyadeena imtixaanaha ah aan idinku talagalnay in aan halkan idinkaga soo tabino haddaba barnaamijkeenan maanta ciwaankiisu waxa uu noqon doonaa maadaama aynu ku jirno bishii cibaadada ee barakaysneed ee Ramadaan maxay tahay waxyaabaha nala gudboon in aan ku badino ajirka iyo xasanaadka aan Allah subxaanahu wa ta'ala ka sugayno soonku maadaama uu yahay cibaado Ilaahay loogu dhawaanayo isla markaana uu adoonku kaga doonayo abaal marin iyo dambi dhaaf waxa ugu horeeya oo ugu wanaagsan inuu qofku niyeysto in uu soomayo bisha Ramadaan si taalamidana waxa la wanaagsan oo muhiim ah inuu qofku ku dadaalo in uu badiyo acmaasha khayrka iyo wanaaga ku jiro inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee Ramadaan sida daraadeed waxa wanaagsan in uu ka fogaado wax walba oo nusqaan iyo ajir yaraan u keeni karo soonkiisa iyo cibaadaadkiisa kale ee uu badinayo inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee Ramadaan haddaba waxyaabaha aad ku wanaagsan in loo badiyo oo lagu kordhiyo cibaadaadka bisha barakaysan ee Ramadaan ee la soomayaa waxa kamid ah in la akhriyo quraanka kariimka ah saxaabada qaar iyo salafkii horeba aad bay ugu dadaali jireen oo imaam Shaafici oo ah imaamka aan madhabkiisa haysano waxa uu quraanka dhamay jiray inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee Ramadaan 6 jeer sidaa daraadeed in aan badino akhriska quraanka waxyaabaha muhiimka ah ee cibaadaadka bishan u gaarka ayuu ka mid yahay si taalamida in aan afurka dadajino si taalamida suxuurta haba yaraatee in uu 3 timir cuno qofka ayaa aad u wanaagsan inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee Ramadaan si taalamida inuu iska dhooro wax walba oo halaynayo ama naaqusinayo cibaadaadka kala duwan ee sameynayo ayaa aad u wanaagsan haddii ay ahaan lahayd sheekooyinka macno darrada ah xanta iyo waxyaabaha la iska sheego sidaa daraadeed waxaan idinkula dardaarmaynaa annaga iyo nafteena iyo naftiinaba inaad ku dadaashaan cibaadaadka iyo acmaasha wanaagsan ee bishan Ilaahay fadliga iyo khayrka u gaar yeelay ee Ramadaan Allahumma sallimna li Ramadaan wa sallim Ramadaan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala Allahumma amiin halkani waa Somali Voice Norway waxaan idinla socodsiinayay barnaamijka anigoo ah Cabdullaahi Nuur Xasan Shiine